الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الهانتين باميل والبود عالم ككجوكتان هل كان نقل سعتان وقول الشو فضلا مركو وهرسا شير جري أو سبسكرايب جري channel كا سي أد مركاسي ولا سعتيد برنامج شدم تحنها سيدا مركاسي مركا أينو صادق نبا أي كو بصور جلان ميدكالي نقو عاوي إن أنو مركاسي كمد نقنو يوتيوب هذا مركاسي سيدا جوكتدا إن وصل جلا إسلام مركانا كتشتا دقيستياشيسا يوليبا داودياشيسا برامج كان ما أنت وحنا وجه الليا سيدات كل نقون كرتا قف عن كعبسن إنه كهالله حقوق دا ومركزي ليه هاي أما بقى أن مركانا كلو ديجو إسكو كالسون هذا بقى سيدات بقى كالسوني دو محيط هاي حجيسا لجيه لا سيدات سكوبر بارين كرتا كالسوني دا kalsoonidu run ahaantii waa wax adiga markaasi aad practice gareyso isla markaana ka dhigaysa qof guuleysta wanaagsan ah tusaale ahaan markaynu soo qaadano sidee loo kobcin karaa kalsoonida marka ugu horeysa qodobka koowaad oo aan kugula talinayaa waxay tahay ha ka fikirin waxa markaasi dhici doona ama ha ka fikirin waxa markaasi aad ku hadli doonto laga yaabee inaad luqad baranaysid oo aad cabsi ka qabtid inaad qalad ku hadashid sida caruurta oo kale maya looma baahna taasi waxay burburinaysaa kalsoonida naftaada aad ku qabtid sidoo kale waxa kamid ah waxyaabaha markaasi la dhihi karo way burburinayaan nafsadaada ha ka fikirin muuqaalkaaga ilaahay ayaa ku sameeyay waxa tahay unique ma jiro qof kula mid ah oo dunidan jooga taasina waxay ku sahlaysaa inaad noqoto qof isku kalsoon haddaba inta ugu badan waxaan ku aqaanaa xishoodka gabdhaha xishoodku wax loo baahan yahay laakiin marka uu noqdo xad dhaaf ee aad markaasi ka hadli weydo adiga oo maanta shahaado qaadanayo aad u mahad celin weydo intaad goobtii soo istaagto dadkii markaasi shahaadada ku guddoonsiinayay taasi waxaa la dhihi karaa maaha mid wanaagsan waxaad u baahan tahay inaad ku kalsoonaato naftaada qodobka kale aan rabo inaan soo qaato waxa ay tahay yaanu kula weynaanin amaba wax weyn kula noqonin shaqsi adiga kula mid ah isla markaana haysta darajo amaba markaasi aad u aragto inuu ka sareeyo maxaa yeelay waxa tihiin laba qof oo isku mid ah yaanu kula weynaanin hadii kale waxaad weyn doontaa xuquuqdaada dadnimadaada iyo waliba waxa kale oo aad weyn doontaa inaad markaasi noqotid qof isku kalsoon qodobka kale ee isagana aan doonayo inaan ku soo qaato halkan ayaa waxa kamid ah ogsoonow inaad leedahay hibo ku gaar ah hadii aad heshid hibada ku gaarka ah ee aad markaasi ama shaqadaada mustaqbalka aad ka shaqeyn doontid amaba wax dadka aad kaga duwan tahay hadii ay jiraan isku day waxaasi inaad practice gareysid aqoontoodana aad raadsatid si aad markaasi u heshid kalsooni dhaba oo aad markaasi la soo shirtagto waxa kale oo iyadana meesha ku jirta mar walba inaadan ilaawin inaad tahay qof xuquuq leh u gaar ah laakiin xuquuqdaada waxaad heli kartaa marka xaq lagugu leeyahayna aad bixiso inta badan waxaynu aragnaa dad iyagu raadinaya xuquuq markaasi ay leeyihiin laakiin aan garanaynin waajibaadka markaasi looga baahan yahay taasina waxay noqonaysaa mid adiga ku weeqdo marka hore noqo qof garanaya waajibaadka looga baahan yahay in uu markaasi ka soo baxo kadibna waxa aad raadsan kartaa xuquuqdii markaasi aad lahayd taasina waxay keenaysaa inaad noqoto qof isku kalsoonaada oo xitaa haddii aad noqoto dadka oo dhan mid ay kasoo horjeedaan waxaad noqonaysaa qof mar walba garanaya wadada uu marayo oo aan marnaba loo tilmaamaynin oo aan waabanaynin garanayana dadka kale xushmada ay ka mudan yihiin inta badan marka waxa laga yaabaa inaad soo martay markii aad yareeydo oo kale for example dadkoo dhan maaha laakiin dadka qaar ayaa soo mara in arday kooxa ay ka soo horjeestaan oo ay isku dayaan inay dadnimadiisa weeqaan way dhacdaa waxay dhacdaa adigoo weyn oo kale way dhacdaa in markaas group ama kooxi ay isku kaabahaystaan ee ay aragti qaldan isu gudbiyaan kadibna ay ku arkaan in aad tahay qof markaasi iyaga ka soo horjeeda amaba aanay isdabeecad keenaynin laakiin waxaad ogaataa mar walba adduunyada intaad joogto ma weyn doontid koox ka soo horjeeda mana weyn doontid kuwa kugu mashquula waayo
waxaa la dhahaa lagu xanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa dhahaa reer xamarka laanahu waxa weeyaan haddii aad tahay qof aan jirin cidiba iskuma kaa soo qaadayso sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad xusuusnaatid kalsoonidaadu inay tahay mid shaqaysa mar walba kaba soo qaad xishoodka aan kusoo laabtay waa diineen wax loo baahan yahay inaynu ka xishoonno wixii xun oo aynaan la hor imaanin ubadkeenna bulshadeenna asxaabteenna saaxiibadeenna haddii aanay ahayn dhacdo markaasi si keliisa ku dhacday amaba wax markaasi qalad oo adiga kugu dhacay inaadan adigu u bareerin inaad la hortimaadid waxyaabaha markaasi aan dadka ama bulshada aan ku wanaagsanayn haddaba techniques ayaa jira aad u baahan tahay kalsoonidaada in aad markaasi marka aad dhisaysid inaad isticmaashid oo aad iyo aad runtii nolosha muhiim u ah ha ku fikirin inaanay dadku wax kaa sheegin waa kow maxaa yeelay waxaad tahay qof noola ah oo bashar ah oo adduunka ku nool haddii aad tahay qof jirana waxaad arkaysaa kuwo badan oo lugaha kaa haysta ka gudub markaa ha isku mashquulinin qodobka labaad wuxuu yahay inaad u baahan tahay inaad deganaan ku noolaato waxaad u baahan tahay si kalsoonidaada aad u dhisto inaad nadaafad ku nooshahay inaad ixtiraamto jirkaaga inaad ixtiraamto dharkaaga inaad ixtiraamto gurigaaga waxaad u baahan tahay inaad ixtiraamto dadka kugu xeeran walow aad iska soo horjeedaan ama fikradihiinu aanay markaasi dhan u wada soconin taas waxay kaa caawinaysaa inaad ku noolaatid nolol deganaan ah nolol xasilooni ah waajibaadkaagana waa muhiim inaad markaasi gudatid runtii waxaan jecelahay inaan sii wado barnaamijkan sidaad ku dhisi lahayd kalsoonida naftaada amaba dadkaad u hor imaan lahayd ee aad uga hadli lahayd waxa aad doonaysa inaad ka hadasho waayo waxaa jira dad badan oo aan awoodin runtii waa la bartaa waxaan xasuustaa xilligii aan saxaafadda tababarka u qaadanayay run ahaantii waxaa jiray wax badan oo markaasi dhibayay ama aan u arkayay inay mushkilad markaa soo kale laakiin wax weyn maaha waa marxalad waqti yar looga gudbo waxaan jecelahay inaan intaa uga gudbo qaybta labaad ee barnaamijkan waxaan ka dhigayaa qaybta ay dadweynuhu ka qayb qaadan doonaan aragtidaada noogu soo gudbi facebooka markaasi adigoo soo koobaya sida aad u aragto sidee buu qofku kalsoonidiisa uu ku markaasi dhisi karaa iyo maxaa looga baahan yahay si naftaadu kalsooni xasilooni iyo deganaansho ay u hesho maxaa markaasi lagaaga baahan yahay ama qaab nooceeya ayaad u baahan tahay inaad u dhaqanto runtii waynu ku kala aragti duwannahay anigu aragtideeda ayaan ka hadlay adigu aragtidaada ayaad leedahay waxaana wanaagsan in aynu markaasi soo wada qaadano haddaba qoraalada igu soo gudbiya facebooka jecelahay idinkana aragtidiina inaad markaasi kasoo dhiibataan iyadoo cilmiyeysan iyadoo markaasi logic ah oo aynu markaasi isla wada fahmi karno si gaabanna markaasi saddex qodob inaad markaasi qofkiiba uu kasoo dhigo kadibna aynu markaasi barnaamij wadajira aynu ka samayn doonaa fadlan waxaan ku leeyahay share garee subscribe garee barnaamijku waa barnaamijkiinii halkani markaasi waa youtube-kayga oo aan jecelahay inaad markaasi ii share gareyso subscribe gareyso isla markaana aad markaasi la socoto barnaamijyada markaasi aan soo dhigo ama kilibada aan ugu talagalay inaan bulshada la wadaago tan iyo intaaynu dib hawada ugu kulmi doono waa anigoo samsam sheekh axmeda oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu